diblomaasiyiin hore u soo maray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka gaar ahaan waaxda u qaabilsan arrimaha Afrika ayaa ka qoomameeyay fursado diblomaasiyadeed oo ku seegay tixgelin la'aanta qadiyadda madaxbannaanida Somaliland oo ay xuseen in aanay xoogga saarin muddadii ay xilka hayeen isla markaana ay ahmiyadda siin jireen dawladihii la isku oran jiray ama dawladii la isku oran jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya oo ay Somaliland ka maqan tahay. warbaahinta Somaliland Post ayaa warbixin ka diyaarisay hadallada ay sheegeen saddex ka mid ah diblomaasiyiin culculus oo hore u soo qabtay xilka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha Afrika kuwaas oo xilligan garowshiyo ka bixiyay qaladaad ku jiray siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku wajahan Somaliland xilligaas oo ay sheegeen inay wax badan ka bedeli karayeen maadaama oo ay qaranka Mareykanka u qaabilsanaayeen jaangoynta xidhiidhada siyaasadeed ee dawladda Afrika. diblomaasiyiintan oo doodoodu ka shidaal qaadanayso habdhaqanka siyaasadda Mareykanka ee Somaliland xilligii ay xilalka hayeen ayaa magacyadoodu kala yihiin Chendaia Fraser, Tabernegy iyo Herman Cohen oo dhammaantood xilliyo kala duwan hayay xilka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha Afrika. Dr. Chendaia Fraser ayaa muddo 5 sano ku beegan intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2009 haysay xilka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika. waxaanay labada mas'uul ee kale kaga duwan tahay inay noqotay mas'uulkii u sareeyay ee dawladda Mareykanka 30 sano ee u dambeeyay socdaal ku yimaada Somaliland iyadoo oo sanadkii 2008 socdaal ku timi magaalada Hargeysa xilligii xukuumaddii madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin. hase yeeshee Chendaia Fraser waxa ay sheegtay inay ka qoomameynayso sida ay ugu fashilantay inay dawladdeeda Mareykanka ku qanciso qadiyadda Somaliland oo ay ku tilmaantay mid ka mid ah ilduufkii siyaasadeed ee soo maray waqtigii ay xilka haysay. Chendaia oo ka mid ah khubarada Mareykanka ee wax looga weydiiyo arrimaha ammaanka Mareykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa arrintan kaga jawaabtay su'aal laga weydiiyay in dawladda Mareykanku aqoonsan doonto Somaliland haddii maamulka Joe Biden ku guuldareysto dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab ee ka howlgasha Soomaaliya. waan ka xumahay inaan dabada ka riixi waayo aqoonsiga Somaliland laakiin waa in Mareykanku hadda ku dhaqaaqo tallaabadaasi. sidaas ayay tiri Chendaia Fraser oo ka jawaabaysay su'aal lagu weydiiyay fagaare ay kula hadlaysay arday wax ka barata macadka siyaasadda ee jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka. dhankiisa Danjire Tabernegy oo intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2021 hayay xilka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika laba xilli oo ka horeeyayna soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ethiopia iyo safiirka u fadhiya Guinea ayaa ku baaqay in shacabka Somaliland laga qaado afti ay maamulkeeda gacanta ku hayso qaramada midoobay si la mid ah madaxbannaanidii go'aamisay Eritrea. Danjire Tabernegy oo arrintan kaga hadlay qoraal uu dhawaan ku baahiyay bartiisa Twitter-ka waxaanu yiri Somaliland waxay u qalantaa afti lagu go'aamiyo madaxbannaanideeda oo ay qaramada midoobay gacanta ku hayso si la mid ah tii laga qaaday Eritrea 1993. ha loo ogolaado in dadkeedu go'aansado inay helaan aqoonsi caalami ah oo xilligiisii ka soo daahay marka loo eego guusha dawladnimada shaqeynaysa iyo qaranka ay dhisteen reer Somaliland. diblomaasiga saddexaad ee ka hadlay qadiyadda Somaliland
iyo doorka looga baahan yahay in dowladda Mareykanku ku wajahdo xilligan ayaa danjire Herman Cohen oo xilka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika soo qabtay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 1993 waxa kale oo uu soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Gambia 1977 ilaa 1980 danjire Herman Cohen ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku faahfaahiyay farqiga u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya oo uu xusay in ay ahaayeen labada wadan xilliyo kala duwan madax banaanida ka qaatay Talyaaniga iyo Ingiriiska ka hor intii aanay isku biirin 1960 waxaanu yidhi Somaliland iyo Soomaaliya markii ay madax banaanida qaateen waxa ay si aan ka fiirsasho lahayn u midoobeen 1960 balse Somaliland waxay go'aansatay inay dib ula soo noqoto madax banaanideeda 1991 danjire Cohen waxa kale oo uu yidhi waa laba wadan oo aan la isbarbar dhigi karin beesha caalamku ma aha inay xaqiiqada iska indhatirto waxa ku waajib ah inay garowshiyo ka bixiso xaqiiqada jirta doodaha ay soo bandhigeen diblomaasiyiintan ayaa ku soo beegmaya xilli uu isu soo tarayo xiisaha dowladda Mareykanka ee ku wajahan Somaliland oo juqraafi ahaan ku taala bugcad istiraatiiji ah oo ay ku loolamayaan quwadaha dunida ee dhinacyada dhaqaalaha militariga iyada oo gobolka geeska Afrika uu saameyn xoogan ku yeeshay dalweynaha Shiinaha oo loolan adag uu ka dhaxeeyo Mareykanka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka xilligan u qaabilsan arrimaha Afrika Master Jake Sullivan ayaa loogu baaqay inuu qaato go'aan siyaasadeed oo ku qotoma danaha Mareykanka ee gobolka geeska Afrika maadaama uu soo kordhayo saameynta Shiinuhu ku leeyahay dalalka ku yaala gobolka Mareykanku xilligan aad buu u danaynayaa Somaliland taasna waxa keentay khatarta sii kordhaysa ee ka imanaysa Shiinaha iyo hubanti la'aanta mustaqbalka Djibouti oo Beijing gacanta ku dhigtay haddii Jake Sullivan uu ku guuldareysto inuu qaato go'aan siyaasadeed oo uu ku qasban yahay waayo way soo xidhmi kartaa daaqada fursadan ka bannaan waxaa laga yaabaa in Shiinuhu xidhiidh la sameeyo Somaliland oo Mareykanka ka hor joogsado inuu saldhig ka samaysto Berbera sidoo kale waxaa laga yaabaa inay wadamo kale sidaas sameeyaan Sullivan waa inuu isugu yeedhaa guddi wax ku ool ah oo arrintan ka fadhiisata dhaxalka madaxweyne Joe Biden ee Afrika waxa ay ku xidhan tahay natiijada ka soo baxda sida waxa yidhi Michael Robin oo ah aqoonyahan ka tirsan macadka American Enterprise Institute oo lagu falanqeeyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka